kulan wacan daawadayaal halkan waa Xoghaya TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah aadan yabaal oo lagu laayay argagixisada ugu badneed iyo ciidamada macawsilada beesha xawaadle oo 10 u dhigay argagixisadii la wareegtay degmadaas dawladda Turkiga oo la wareegaysa hoggaanka dagaalka lagula jiro argagixisada Soomaaliya iyo ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan militariga Turkiga oo soo gaaray Muqdisho Somaliland oo tacsi u dirtay baadarigii ugu weynaa ee Bobo Faransiiso iyo arrintan oo tuumo culus ka abuurtay dood xooggan ka dhalisay habka Somaliland ay u raadinayso ictiraafka iyo dawladda Soomaaliya oo loo jeediyay in magaalooyin ay ku jirtay Muqdisho laga masaafuriyo xaasaska iyo carruurta hoggaanka kooxda argagixisada shabaab si looga dabagalo duurka qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku daawan doontaan barnaamijkeena intuu hawada ku jiro balse daawada haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe sidoo kale muuqaalkan like saar si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee hela xogaha halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay macawsilada beesha xawaadle ee ka dagaalantay gobolka Hiiraan isla markaana ku sugan deegaanka Mabax ee hoostaga degmada Moqokore ee gobolka Hiiraan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday xubno ka tirsan kooxaha argagixiso oo isku dhuumaaleysanayay aaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo khasaare badan lagu gaarsiiyay kooxaha khawaarijta ee degmada Aadan Yabaal la wareegay maalmihii la soo dhaafay saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa waxa ay warbaahinta u xaqiijiyeen in khawaarijtii ugu badnaa ay ku dileen howlgalka isla markaana howlgalku sidii loo qorsheeyay u dhacay oo ay ku guuleysteen waxayna sheegeen in dhagartii cadawga halkaasi ku maleegay ay guud ahaanba fashiliyeen waxaa socotay qiimeynta khasaaraha khawaarijta halkaasi lagu gaarsiiyay iyadoona howlgaladan ay daba socdaan howlgallo kale oo la doonayo in ciidamada deegaanka gobolka Hiiraan ay ku xoreeyaan degmada Aadan Yabaal oo hore ay isaga carareen ciidankii dawladda iyo kuwii macawsilada beesha Afgaal ee halkaasi ku sugnaa howlgalkan lagu gaarsiiyay kooxaha argagixiso jabkii ugu xumaa ayaa imaanaya iyadoona kooxdu ay ilaa iyo Arbacadii la soo dhaafay gacanta ku hayso degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoona halkaasi dagaal Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay kula wareegtay kadib markii ay isaga carareen taliyayaashii ciidamadii deegaanka iyo kuwii militariga Soomaaliya ee halkaas ku sugnaa iyadoona fadeexad xooggan ay ka dhalatay ciidamadii xoogga dalka ee ku jabay dagaalka Arbacadii ka dhacay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii kooxaha argagixiso ay halkaas soo weerareen isla markaana dawladda Soomaaliya ay cambaareen xooggan kala kulantay ayaa waxay ciidamadii halkaas ka baxay aadeen dhanka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyadoona qaarkood ay gaareen ilaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhinaca kale ciidamadii kale ayaa iyaguna waxay aadeen dhanka gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Cadale oo ay fariisiin ka sameeyeen ciidamadii deegaanka ee isaga baxay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ciidamada deegaanka ee reer Hiiraan ayaa wali difaac ugu jira aaga gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Dhexe ay wadaagaan waxaana ciidamada deegaanku ay markasta khawaarijta gaarsiinayaan khasaare hor leh iyagoon halkaasi fariisimo xooggan ka sameeyay isla markaana iska diiday inay ka baqadaan khawaarijta duulaanka ku ah gobolkooda waqtigan oo howlgallo xooggan ay dhacayaan isla markaana hawada ay ka maqan tahay isgaarsiinta deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay ciidamada deegaanka wadaan howlgallo xooggan oo ay ku dabarjarayaan firxadka khawaarijtii lagu laayay degmada Aadan Yabaal aageeda isla markaana waxa la sheegay in ciidamada deegaanku ay ku dhow yihiin inay gudaha u galaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe si kastaba haatee ciidamada macawsilada deegaanka ee gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale waxay horey cabashooyin xooggan u muujiyeen in aysan gaari karin deegaanada ay degto beesha Afgaal ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe waxayna dawladda ugu baaqeen in deegaanadaasi la keeno isla markaana dib loogu xoreeyo kooxaha argagixiso maadaama argagixisadu ay xooggeeda soo saarayso dhanka gobolka Hiiraan isla markaana culays xooggan ay kala kulmi karaan ciidamada macawsilada ee gobolka Hiiraan وهاك داود يا دولة تركيا أيها لو ريجيسي هوجانك دجال كلجلة شركة كحار جحسوا يضينوا عندما يجوا بدنا أو كترسن ميلترية تركيا يسوع جارين مقالة مقدسة عاصمة الصومالية دولة تركيا أيها لو ريجيسي هوجانك دجال كديمركي كحار جحسوا كدجال لما كونفورتي برتمها الصومالية أي مالمي يبيري يقدم بيه بسمينين howlgallo ballaaran iyo weerar ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waxaana ciidamada dawladdu ay faarjiyeen dhammaan deegaano badan oo ka tirsan gobolada Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Shabeellada Hoose iyadoona kooxdu culays xooggan ay soo saartay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo deegaanada ku hareeraysan si kastaba haatee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii deegaano badan oo ay ka mid tahay degmada Aadan Yabaal ay la wareegeen kooxaha argagixiso waxa uu garabsaday qatarta isla markaana in kooxaha argagixiso ay qabsan karaan
caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaana la sheegay inuu taageero weydiisay dowladda Turkiga oo dhanka Turkiga u bayray dowladda Turkiga ayaa la sheegay in ay wacd ku martay inay Soomaaliya ka garab siin doonto dagaalka lagula jiro kooxaha argagixiso isla markaana ay la wareegayso dabarjaridda hoggaanka dagaalka lagula jiro kooxaha argagixiso dowladda Turkiga ayaa waxay Soomaaliya u soo dirtay ciidamadii ugu badnaa oo militari ah kuwaas oo deegaano ku hareeraysan caasimadda Soomaaliya ka xoreeyay kooxaha argagixiso waxaana la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa militariga Turkiga oo gaaraya ilaa 500 askari oo commandos khaas ah ay soo gaareen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si ay qayb uga noqdaan howlgallada militari ee lagu ciribtirayo kooxaha argagixiso dowladda Soomaaliya oo horay Turkiga uu sii jiray kaalmooyin militari oo badan sida inuu u tababaray ciidamada gorgor oo ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan Soomaaliya ayaa hadda waxa uu ku biirinaya howlgalka ciidamada Turkiga kuwaas oo qayb xoogan ka qaadan doona dagaalka lagula jiro kooxaha argagixiso sidoo kale dowladda Soomaaliya waxa uu Turkigu siinayaa diyaarado casri ah kuwaas oo ka qayb qaadan doona dagaalka lagula jiro kooxaha argagixiso waxaana Turkiga diyaaradihiisa ka mid ah diyaaradda Bayraktar TB2 oo ka mid ah diyaaradaha daroonka ee ugu casrisan caalamka isla markaana wadamo badan ka howlgashay si kastaba haatee dowladda Turkiga sidoo kale waxa ay Soomaaliya ku biirinaysaa khubaro dhanka dagaalka argagixisada waxaana la sheegay inay magaalada Muqdisho soo gaari doonaan saraakiil sare oo militari Turki ah kuwaas oo deji doona istiraatiijiyad lagu ciribtiri lahaa kooxaha argagixiso oo maalmihii iyo bilihii la soo dhaafay si weyn u soo bandhigay awoodooda isla markaana la wareegay deegaano badan oo hore looga saaray si kastaba haatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu garabsaday in argagixisadu ay halis ku tahay jiritaanka Soomaaliya iyadoona loogu baaqay dhawaan in madaxweynuhu uu qaado tallaabo ka duwan isla markaana uu meel iska dhigo doorashooyinkan uu boobayo oo uu garowsado xaqiiqda in argagixisadu ay la wareegi karto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho daawadayaal Somaliland ayaa tacsi u dirtay baadeerigii ugu weynaa caalamka ee geeriyooday oo lagu magacaabo Bob Francis iyadoo arrintaani tuxumo culus iyo hadalayn xooggan ay ka abuurtay dhanka Somaliland ayaa waxa ay noqotay mid ka mid ah dalalka ugu horeeyay ee tacsi u diray baadeerigii ugu weynaa caalamka ee Bob Francis iyadoo arrintaani ay dadka Somaliland ay si weyn uga soo horjeesteen si kastaba haatee Somaliland ayaa waxay hore u sheegtay inay ixtiraaf u galayso meel kasta waxaana ay dhalisay arrintaasi tuxumo xooggan iyadoona lagu eedeeyay mas'uuliyiinta Somaliland inay ictiraaf siisanayaan qiimka diineed iyo midda ummadeed ee ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku nool Somaliland si kastaba haatee Somaliland waxay ictiraaf u raadinaysay wadamo badan iyadoona u gashay meelo badan waxaana ay tahay wili dal aan ku guuleysay inay ictiraaf caalamka ka hesho waxaana jira wadamo badan oo Somaliland u ballan qaaday inay ictiraaf siinayaan balse ilaa hadda aysan wax taageero ah ka helin dhanka ictiraafkooda Somaliland waxa hakad ku dhowdhaqayo kala duwan oo ku aadanaa sida ay Somaliland ictiraaf ku heleen tani markii uu yimid dalka Mareykanka xukunkiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoona dhawaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Barre safarkii uu ku tagay magaalada Laascaanood uu dhinaca kale u gadiyo qorshihii Somaliland ay ku aqoonsanayeen wadamada caalamka kadib markii lagu dhex arkay qaybo ka mid ah deegaanadii ay Somaliland sheeganaysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ah mas'uulka labaad ee ugu sarreeya dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba haatee waxaa isbedelay qorshihii beesha caalamku ay ku fiirinaysay Somaliland isla markaana ay doonaysay inay ku aqoonsato Somaliland tan iyo markii lagu dhawaaqay maamulka SSC Khaatumo oo ka talin doona deegaano badan oo horey Somaliland ay u sheeganaysay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo dhawaan safar ku tagay dalka Mareykanka ayaa waxa uu kala soo kulmay wajigaba xoogan iyadoona uu waayay cid la kulanta isla markaana ku casuuntay heer dal ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loo soo jeediyay in xaasaska iyo caruurta kooxaha argagixiso ee ku sugan caasimadda Soomaaliya laga masaafuriyo isla markaana dhanka duurka ay ku dhumaaleystaan loo masaafuriyo taliyaha ciidamada deegaanka ee Macawsileeda gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa ku baaqay in caruurta iyo xaasaska dagaalyahanada kooxaha argagixiso laga raro deegaanada ay maamusho dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana dib loogu celiyo deegaanada ay haystaan kooxdu oo horumar la'aan baahsan ay ka jirto Cali Jayte Cismaan waxa uu muujiyay dareen carale oo ku aadan in qoysaska kooxaha argagixiso ay si nabad ah ugu nool yihiin magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Muqdisho kuwaas oo ay maamusho dowladda Soomaaliya halka waxa uu sheegay dagaalyahanada kooxdu ay weli bartilmaameedsanayaan dad rayid ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya
cali jeete cismaan waxa uu sheegay in kooxaha argagixiso deegaanadooda ay horumarka u diideen isla markaana waxa uu sheegay in magaalooyinka dawladdu ay maamusho horumarada iyo waxbarashooyin kala duwan ay ka jiraan ay u soo raraan caruurtooda si ay u helaan waxbarasho waxayna u diideen caruur ayaga la mid ah oo ay maalin walba qaraxyada ku soo xirayaan ayuu yiri hogaamiyaha gobolka Hiiraan ee ciidamada macuusileedaha hogaamiya cali jeete cismaan inkastoo uusan ku baaqin waxyeelo loo geystay caruurta cali jeete waxa uu sheegay in joogitaanka qoysaska dagaalyahanada argagixisada ee magaalooyinka dawladda ay maamusho ay dhaawac ku tahay cadaaladda isla markaana waxa uu sheegay in culays dheeraad la saaro caruurta kooxaha argagixiso iyo xasuuskooda ku sugan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho cali jeete sidoo kale waxa uu ku tilmaamay kooxaha argagixiso kuwa arxan daran oo gumaystii hore ee dalka soo maray ka daran waxa uu ku eedeeyay inaysan ixtiraamin nolosha aadanaha iyo mabaadi'da islaamka isagoona sheegay in 500 oo qof ay dileen isla markaana waxa uu sheegay inay si kasta oo ay dhiigga islaamka ku cabaan aysan ka soo roonaan doonin waxa uu sheegay in baaqyadooda beenta ay ku aadan deegaanada ay qabsanayaan ay tahay midaan waxba ka jirin isagoona tusaale u soo qaatay degmada aadan yabaal oo uu sheegay in markii hore dadka shacabka ay ugu baaqayeen inta aysan la wareegin inay nabadgeli doonaan balse waxa uu sheegay inay magaaladaasi markii ay qabsadeen ay ka geysteen ficilo arxan darro ah isla markaana ay xasuuqeen dad shacab ah oo waxba galabsan وهكذا وديال جودان أنت سواء كوي ورك ودن بيت كلا ساعتين حكاية تي في فضل هديات كعصوب تاي قناة كسبسكرايب ده كلام من القصة أحب هذا هالكان كحيرن أو نلقى ريان كاسي ولا بعتن ككون سبسكرايب